dhegeystayaal weli waxaanu ku guda jirnaa idaacaddeenii madasha furan waxaad haddii eebaha awoodda la yidhaahdo nagala qayb geli kartaan dhinaca facebooka oo madasha furan aad su-aalihiina iyo fikirkiinaba kasoo weydiisan kartaan waxaad sidoo kale aad nagala socon kartaan hawada 88.5 FM iyo cjsr.com listen live waa tahay barnaamijka waxaa inoogu martay siman cilmi oo ah madaxa siman charity iyo cabdi xirsi raage oo ay reer Edmonton intooda badan garanayaan inkastoo waayadan dambe reer Edmonton ay qaybsameen oo reer Edmonton cusub iyo reer Edmontonkii hore ay u kala baxeen labadiinaba ku soo dhawaada madasha furan waan dhownahay jaamac waa maasantahayna waan dhownahay walaal jaamac waayahay dhinaca kale haddii aan ku hormaro simanay soo dhawow marka hore waxaad sharaxaad kooban naga siisaa siman charity aad ayaad u mahadsan tahay waan dhowahay walaal magacayga waa siman cilmi waxaan ka shaqeeyaa barnaamijka tabarucaadka kaasoo lagu garab istaagaya dadka xanuunsanaya ee aan awoodin waxay dhakhtarada ku tagaan iyo sidoo kale dadka baahiyaha gaarka ah leh siman charity waxay soo bilaabatay 2018 ilaa haddana way shaqaysaa waxaa ilaahay u suurtageliyay inay ku dawoobaan 100 qof qaarkood kiisaskooda waa lagu guuleystay qaarna waa lagu guuleysan waayey caqabado jira awgood oo hadday ka mid yihiin caqabadahaas waqtigii dhakhtarka la geyn lahaa ay kasoo raageen qaarkood wax lagu daweeyo in la waayey qaarkood inay u baahdeen dhakhtarra dibadda waan u imaanaynaa howlihii aad qabateen waxaad nooga warantaa siman charity goormee ayay shaqada bilowday iyo weliba xaggee ayay ka bilowday markii ugu horreysay waxaan bilownay 2018 waxaana ka bilownay deegaanka Soomaalida si fiican 2018 marka maxaa u sababahaa siman charity inay shaqo bilowdo waxaa sabab u ahaa xaalado jira oo ay ka mid yihiin inay jiraan dad badan oo baahan oo guryaha ku jira oo aan taageero haysanno u baahan in la garab istaago taas unbay ahayd wax kasoo dhex baxay bulshada inaan garab istaagno waaya carabka waxaad ku dhufatay dadyaga aad u adeegtaan inay ku jiraan dadka baahiyaha gaarka ah qabo af Soomaaligaas uu cusub yahay maxaa laga wadaa dadka baahiyaha gaarka ah qabo dadka laxaadkooda uu dhiman yahay ama Soomaalida ee curyaanka tiraahdo oo kale dadkaas oo baahiyahooda kala duwan yihiin inay tahay indhaha inay tahay laxaadka lugaha adoo qof oo disable ah waaya simanay gadaal noo celi 2018 maxaa dhacay maxaad samayseen oo hawshan ay ku bilaabatay waxay ku bilaabatay qof xanuunsanaya ayaan la kulmay maalin kadib waan wareystay waxaan arkay lugtiisa oo dhacaan badan ka da'ayso waxaan weydiiyey inta sano xanuunsanayay hooyo Soomaaliyeed bay ahayd waxay u tiri 8 sano xanuunsanayay waxaan ku idhi say kula tahay haddaan dhakhtar ku geeyo hooyadii baan dhakhtar geeyey intaan hooyadii dhakhtarkii ku guda jirnay ayay waxay ii sheegtay inay jiraan dad ehelkeeda oo ayada ka daran marka sidii baan hooyadii ku daweynay isla qofkii ay noo sheegtayna waan soo qaadnay ilaahay waa nagu guuleeyay marka bal sharaxaad naga sii xanuunkaas siduu ahaa heerka uu marayay iyo tilaabooyinkii aad qaadeen adiga iyo dadkii kula shaqeeyeyba ilaa aad guushii xanuunkaas ka gaarayseen labada qof isku cilad bay ahayd xanuunkoodu ka kacay labadaba waxaa ku istaagay dameer baa lugta kaga istaagay infection bay lugta qaaday mayna tegin dhakhtar duruufo dhaqaale la xidhiidha kadib markaan soo qaadnay dhakhtarka geynay kiiska koobaad ku guuleysanay ayaa waxaan dareenay inaan bulshada haddaan sii dhexgalno xaaladahan iyo kuwa ka daran aan ugu tegayno sidii ayuu kiisba kiis noo dhiibayay labadii kiisba guul bay ku dhamaatay alxamdulilah rabbil caalamiin mid ka mid ah lugtii infectionkii waxaa la yidhi waa in lugta la gooyo waan goynay lug artificial aan u samaynay haddana wuxuu ka mid yahay dadka caadiga ee xogsada maasha allah waa inkastoo ay arrin naxdinla tahay haddana waa farxad inay guul ku soo dhammaatay xaggee ayay ahayd meeshaas magaaladee waxaan ka soo qaaday qabalo la dhaho Cumar Doon degmada Qalaafe gobolka Shabeelle qabale marka af Soomaali loo matalo waa tuulo miya waayahay tuulo la yiraahdo
tuulo la dhaho qalaafe khallaafe khallaafe degmaan u malaynaya waa degmo qabalaha cumar doon la dhahaa degmadana waa qalaafe degmadu waa khallaafe tuuladana gobolkana waa Shabeelle halkaas cashir juqraafi baa ku jira oo dadka aan tegin deegaanka ay ka baranayaan oo aniga waliba aan ka mid ka ahay labadaas qof kuwii u horeeyay bay ahaayeen yaa ku xigay xagee ka dhacday maxayse ahayd kiiskii ku xigay wuxuu ahaa wiil xanuunsanaya oo muddo dheer xanuunsanayay wiilkii magaalada Jigjiga ayuu asagoo kiiskiisa ahaa waxaan dhakhtarka referaalkan geynay wuxuu noo sheegay xanuunkiisa inaan halkan waxba lagaga qaban karin kadib waxaan usii qaadnay magaalada Addis Ababa intaan Facebook lacag uga guray Ilaahay subxaanahu wa ta'ala asagana wuu nagu guuleeyay asagana misigtaas ayuu ka qabay maxay ahayd cilad marka ma jabnayd ma dilaac baa jiray muddo dheer ayuu ka jabnaa daryeel caafimaadna ma helin laba sababood baa u ah dadku inayna daryeel caafimaad helin kow bulshada qaarkood waxay joogaan meelo fog oo ka fog magaalada fahanna kama haystaan inay yimaadaan goobaha caafimaadka qaarna duruufo dhaqaale ayaa hor istaagay waaye aad ayaad u mahadsan tahay labadaa qodob aan kala qaadna marka dadka aad ku horumartay meelaha dhaadheer degan oo aan magaalooyinka ku noolayn fahankana aan ka haysan maxay ku dhacday in 2012 iyadoo la marayo 18 baad shaqo bilowdeen telefishinaa jiro Facebook iyo internet baa jiro waan aragnay dadka reemiyigu telefoonno waxay wada wataan smartphone oo way la socdaan waxyaabaha marka maxaa kalifi kara xilligani inaysan dadku ogeyn in arrimo caafimaad iyo goobo caafimaad oo daryeel lacag ba ha ahaatee laga heli karo arrintoodana in la eego ay u baahantahay dadka aan anigu jaamaco aan la kulmo ee aan 6 sano u dambeeyay maaragta hawshooda aan ku guda jiray ma aha dad smartphone haysta waa dad ee qaarkood aan telefoon haysanin oo marka aan la kulmo caqabada koowaad ba ay igu noqoto aniga iyagii sidaan u xiriiri lahayn qaarkood baan markaa telefoon u iibiyaa waa dad tuulooyin fog ku nool oo masaakiina ama reemiye ah amaba qofku inuu xanuunka ka caafimaadayba aanu haysan ama aaminsanba in dhakhtar miyi la isku waaya qaybta kale waan u imaanaynaa oo iyagoo magaalada jooga daruufo dhaqaale ay u joojiyeen waxaa stuudiyaha nagu weheliyo Cabdi Xirsi Raage kusoo dhawow mar kale waxaad nooga warantaa dhowaan marka waxaa dhici doona kulan lagu soo bandhigayo waxqabadka Siman Charity iyo weliba siyaabihii ay u soo shaqeysay iyo waxa la doonaya hadda in lagu daro bal kulankaas warbixin kooban naga sii بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعة ومحسن تهي runtii waan kaga mahad celinayaa inaad noo ogolaatay ama naga siisay waqti aan runtii ummadan ama bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan aan cilaamka ugu sheegno in kulan noocaas uu dhici doono sidoo kale waan mahad celinayaa walaashay Siman oo runtii dadka kamid ah dadka yar ee farkutiriska ah sida iskood ah ayagu intay soo abaabuleen bulshadeennii Soomaaliyeed oo iska tabaalaysan oo hadda ku ay ka shaqeynaysaa ayuu istaagtay runtii waan u mahad celinayaa waxaa dhici doona jaamacow kulan aan ka dhici doona bisha 18 haddii alla idmo axadda oon manay maanta waa axad weeyaan wuxuu ka dhici doonaa Samaale Hotel oo ku yaala 118 Avenue iyo 39 39 Street yes absolutely waa mahadsan tahay 39 Street kaasoo rajeynayna inuu ilaahay idamkiisa meeshaas ka dhaco waxaan ugu talagalnay kulankaasi laba qaybood baan ugu talagalnay laba ujeedaan oo kale actually labada ujeedo waxa weeye marka koobaad kulan hawsha muhiimka ah hayso walaasha Siman in ay dadku ogaadaan ugu yaraan horta xog ay ka helaan anagu waxaan ahaa dadkii markay gudaha joogtay gudaha deegaanka dadkii la socday runtii Facebook kala socday waxqabadka ay sameeynay biyo dhaamintii ay sameeynay meelihii fofogaa ay gaadhaysay dadkii ka warhayay baan kamid ahaa markii ay runtii meesha timaaday ku arkay wadankan marna waan farxay marna aad baan uga naxay mar waan farxay oo gabadhii waxqabadka noocaas ummadda bulshada u qabanaysa inaan arko oo la kulmo farxad bay ahayd oo waan ku farxay marna waan ka naxay oo waxaan ka naxay shaqada muhiimka ah ee bulshada ay u haysay in booskeedii oo kale maadaama dadkeenu ay dad ay aad u yaryihiin dad noocaas u istaagay in ay runtii ayna jiraynin baan aad uga naxay marka
qodobka koowaad waxa weeyaan bulshadu inay ogaato si ay uga qayb qaataan inay wacyigelin iyo xog ku filan ay helaan qodobka koowaad kaasoo ahaa qodobka labaadna waxa weeyaan waxaa jira dad aad u fara badan oo hadda gacantooda ku hayso oo dhibaatooyin aad u fara badan ay hayso oo sidaa ay sheegayso dad ama duruufta dhaqaale ay sabab u tahay ama qaar wacyigelin la-aan ay u tahay ama dhaqaale aan haysanin oo fara badan oo gacantooda ku hayso in dadka Soomaaliyeed ee gobolka degan ee muxsiniinta ah ee wax la baxaya wax la bixi jiray hadda korna kuwa faraha badan ay ku guuleysatay waxaan u manayaa kiisaskeeda kulleeyay xogteeda sheegi doonta ilaa 700 ruux bay sheegaya dadka ay caawisay ah marka ummadda Soomaaliyeed un baa caawisay marka kuwii noocaas ay muxsiniinta laftarkooda inaan ku invite garanay meesha si markay xogta helaan ilaahay idamkiisa aan ooga helo taageero meeshaas ayada ah waaya su'aalihii aan ku weydiin lahaa jawaabahoodii waad qadintay aad baan kaaga mahadcelinayaa marka barnaamijkaasi 18 bishii u dhacaya wuxuu ka dhacayaa Soomaaliya in waqtiga noogu dar saacada waa saacada wuxuu dhacayaa 4 galabnimo ilaa 8 marka 4 bilaami doona ilaahay idamkiisa 8 waan rabnaa inaan ku soo gabagabayno waaya aad baad mahadsan tahay haddaan adiga ogolaato waxaan jeclaan lahaa in yar sakan inaan ummadda Soomaaliyeed aan yar ciilamkayga ugu dar ilaahay idamkiisa waxaan ka codsan lahaa ummadda Soomaaliyeed ee ku nool deegaankan gobolka Alberta gaar ahaan magaalada Edmonton iyo nawaaxigeeda inta ku xidhan qaybtan haddaan ka wada hadlaynay raadiyaha ku xidhan waxaan aad u jeclaan lahaa in ay ka soo qayb qaataan ka soo qayb galaan gaar ahaan ganacsatada iyo inta ilaahay wax siiya ama inta jecel inay markasta wax la baxaan ee muxsiniinta sadaqaduna waxyaabo aad u fara badan runtii oo maanta bulshadeena reer Edmonton ama qurba joogta aan u baahannahay oo xanuuno fara badan oo ina haysta dhibaato fara badan oo ina haysta walwal fara badan oo ina haysta ayay inaga kaafaysaa quraanka intaasoo jeer buu sheegay xadiista nabiga calayhi salaatu wa salaam intaasoo jeer buu sheegay inay dawadu inay sadaqadu tahay dawo aynu u baahannahay waxaynu ka helaynaa farxad baynu ka helaynaa waxaynu ka helaynaa saacad baan ka helaynaa waxaynu ka helaynaa wax fara badan oo aan la soo koobi karin marka bulshada Soomaaliyeed aad baan runtii aan ugu dhiirigelinayaa uguna baaqaya inay ka soo qayb galaan waad ku mahadsantahay jaamacaduna aad iyo aad baan mahadsantahay raage siman haddaan ku soo noqdo waxaa tidhi daruufo dhaqaale ayaa dadka qaar ka xadadaya inay arrintaasi qayb ka helaan marka sida aan ognahay Soomaalidu dad iscaawiyo weeye dad isku tiirsan weeye dadku ehel iyo Soomaalida kale ee magaalooyinka ku noolba caawimaad ayay ka dalbadaan marka ma waxaa dadkaasi ka hortaagan xishood ay ka xishoonayaan inay ehelkii iyo dad kale wax weydiistaan maadaama arrin caafimaad oo daruuf adag ay tahay waad mahadsan tahay jaamac dadka duruufaha dhaqaale ee la soo darsa ee ayna bulshada caawimaad uga helin waxyaabaha sababta waxaa ka mid ah inay ka xishoonayaan inay bulshadii horta xanuunkooda usoo bandhigaan dadka qaarkood xanuunka way isqarsadaan aniga oo ka shaqaynaya qaar baa idiida inaan dhakhtar geeya xataa oon ku baraya oon dhahaa anaa dhakhtarka idinka bixinaya qaarkood maba aaminsana dhakhtarada magaalada in lagu bogsado oo dhakhtar miyiga iyo geedaha bay aaminsan yihiin kuwayowga ay duruuftu ka hortaagantahay waxaa ka mid a qofkii hayntiisii baa yar waana qof danyar ah wuxuuna u baahan yahay meesha uu joogo meelaan ahayn in lagu daweeyo dhaqaalo ku filan looma hayo marka anaga laftarkanaga mararka qaarkood baan caqabaad aad u badan kala kulanaa inaan qofkii wax ku filan inaan weyno ama wixii aanu ku talagalay waxaan ahayn inuu xanuunka isu bedelo oo kharash intii ka badan uu u baahdo qofkiina cid kuu diray ma jiro adaa mas-uulka ah farta iyo meesha bugtaa is og baa layidhi meeshii aan u socday baad hadda ku dhacday inkastoo cabdi xidhsii horey u taabtay siman waxaad nooga warantaa in dadkaasi aad daweyso oo aad caawiso dabcan dhaqaale iyo wakti baa ayaa ku baxo dhaqaalaha waktiga aan idhaahdee waaba garanayo waad sadaqaysatay laakiin dhaqaalaha dadka tirada badan lagu caawinayo xagee ku imaanaya waa su-aalan aada ugu faraxsan inaad weydiiso alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay ka soko wuxuu ka yimaadaa bulshada dhexdeeda oo u badan qurba joogta waxaa lafdhabar u ah qurba joogta oo ay ka mid yihiin gobolkan aan hadda joogno dad jooga america yurub adduunka oo dhan social mediaha ayaan soo dhignaa xogta markayna soo gaadho kadib dadka muxsiniinta ayaa arka inta ilaahay u qadaray baa kasoo jawaabta waaya maanta ceelkii ayaad joogtaa 18 bishana waa loo mudaysan yahay maxaad ka filaysaa reer Edmonton iyo Alberta guud ahaanba waan ku faraxsanahay inaan maaragtay barnaamijkii baahanaha buka
barnaamijka magaciisa baahanaha buka la qof buka oo haddana baahan ha marka in dadkii caawin jiray ama social media kala socday inay caawad iyadii oo live ay arkaan ama dadkii ay wax u qabteen kuwii lagu guuleystay iyo kuwii lagu guuleysan waayey iyo kuwa hadda taaganba hortooda caawa in lagu soo bandhigayo waxaana ka rajaynayaa inay si weyn uga soo maaragtay qayb qaadan doonaan oo barnaamijka noo imaan doonaan kadibna qof walba insha Allah waxa awood inuu ka qayb qaadan doono kii aan ka qayb qaadanina inuu ka heli doono fikir bulshadiisa iyo meesha ay maanta marayso inuu wax ka arko barnaamijka magaciisa waxaan maaragtay ka dhignay wax ka ugu duruufaha dadka Soomaaliyeed waa magacaadi aad u wanaagsan wax ka ugu duruufaha dadka Soomaaliyeed iyo waliba baahanaha buka eray bixin aad u fiican ma mu'allif baata way xaaladda uma ku kalifaysa waya aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin labadiinaba insha Allah bahda madasha furan haddaanu nahay waa kasoo qayb gali doonaa dhageystayaashana waxaan ka codsanaynaa inay ku darsadaan waqtigooda oo inay yimaadaan ay kusoo dadaalaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامعة ما سنتي جزاكم الله خيرا. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا بعض ما سنتي جامعة.